qodobka saddexaadna waxaan wax ka oran doonaa nabadda ceerigaabo laga wado walow la leeyahay maanta dagaalaba socda. marka soo dhawaada waxaan rabaa inaan yara dhigaysano oo ku sugno inta la soo badanayo tix uu tirinayo kolay abwaankaasi inuu reer bari yahay baan filayaa. wal dagaalada sokeeye iyo halaaga iyo dowlad la'aanta iyo madax xumada iyo sida ilaahay looga fogaaday buu sharaxayaa. marka soo dhawaada insha Allah taala aan yara dhigaysano. badirno hadalku deeqaye darbiyo dadkaygu baa u siman dooda mansaday bulshadan danteed garan naflaha wuu dambaysay way dabadiyo banadan dintu saacidine qabyaalada hadan laga daweyn way isdilayaan dur joogta kama ay duwana doqda geedahay halka ay ka yara dabacsan tahay on dadka u muuqan oo laga dareen qabo ayaan ku dulmarayay odayaasha doobinahaye labada damooda oo nabada duflaaliyoon xaqa ku doodaynin dowdhafka ficilada dilka istaba yaala deegaanada cadawoobay iyo dariska eedoobay daacadnimada laga dharshayo duuda laba reera oo darar kumala jiriyo dhalin xogsada ee dabka shidan kuwii damin lahaa looma soo dirine maamulkanse doorku lahaa aan dadaalgeline danta guud difaacay lahayd bala dayacay darajada kuwii noo sida nagu daryeelayne dar ilaah haddii laga noqda daawa dhalatay isdilkan dadkeennii qarribay laguma daaleyne haddii diinta lagu dhaqi lahaa labama doodeene darka ceelka iyo duur cidla kuma dagaaleyne caasimada layskuma dileen duhur dharaareede allaylihi dambaw lama rabe dorogtay ceebtiye duufaan madowba ku degay dagaaladeniye dibindabya dul nagu wadiyo dalinba yimide marka horese duugii horiyo danihiisu yaalka haddii aan dulmaro daraf ka mida diraad ku iftiinsho adinkoo dan laysimanaho uliya dirkeeda oo dararta wada maalayo dalaga beeraya dunyadana aan kala duwayn dariisna eedoobin deegaankuna dadkau siman yohon degla kala oodan degelkana ninkii doonaya nabaad ku danshoodo oon laba ka doodahi jirin daqsinkiiya ceesha marunbaa damiirkii lumood wadaadayowdeene deganaan wax lagu heli karaa diriir ku doonteene nabadana ninkii diidanba loogu dowgalaaye kuwa dacaridin qoshaye dudan nala sheegtaa ayuunbaa dalloon idinka ridiisadu dagantaane mana aa dareentan kolkay dabinka qolaane dar ilaahay dulkaan ahayn kuma dirna hooye iska diida dilal baa jiriyo dulla soo diraaye aday tagay aday dilaahay iyo doodaha isdiidan iyo waxa degaankii ka jira waa dareen culuse dalka iyo dadkeennuba dhibsadee diriir sokayaade dameerkiinnii dulbaa la tegay dowyasi maraye shaydaanka duufsada dadka duubidin xiraye dabcigana kan duurjoogtaba idinka diroone laba hooya wadaadii hadday baan kala dabqaadayne wadakana waxaad doorateen deeqilah badane dilkii uu ilaah naga xarimay looma meeldaye ee duhurkii ayaa lagu dabrayn den midan qabiine inase walaalka disha waa dameer xumaye dunyaduna waa darfidnoon lagu wadahayne dulliyohow dambawdaye adoo damiina qoraya adoo dariis duleedada fadhiya mar la daba jooga malagii ku dili lahaa hadduu soo degdega haatan adigoon diyaar noqon haddii ruuxda la istaayo karfankii haddii lagugu dado lagugu duuduubo ilkii daboola haddii dadab lagu seexsho oo shalay ninkii kula dunaa
dhiga kagu dadsho yaa ka dami noqon su'aal dooraba jiriye qabiilkuse maku doodayaa barta lagu dugo qabiilkuse maku doodayaa barta lagu dugo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دموان السلام يا خياري سود هذا تحدث قبيقة إلهي قرآن كسوح كله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كو انتي دقيستان إلهي كلام كيسا إي حقا كدب نقاة كيسا وناكسن إن وحلا دقيستا أبي مهم متحي waxaa laynoo sharaxay hadda dilka iyo dagaalka sokeeyaha iyo halaaga uu leeyahay ilaahayna waatuu qur-aankiisa ku lahaa waatuu aayadda waaba ii goysay kuwa wax garanaya iyo kuwa aan wax garanaynin ma sinna fas'aluu ahla dikr in kuntum laa taclamuun. war waxa idan aqoonta u lahayn dadka idinku dhaamo weydiiya. waa u mahad celinaya abwaankaas. waxaan rabaa inaan ku soo laabto ujeedada ereygan aan u soo qaatay. horta ereygani waa ereyga halaagay dhammaan dhulka Soomaalidu. waxaan u maleynayaa dhulka hadda loo bixiyay waqooyi bari iyo gobolkaas la yiraahdo SSC. waad garanaysaan taariikhda waxaasi ay ku leeyihiin iyo sida loo naafeeyay. dhibka jiraana waxa weeye إلهي با قرآن كسو حكري هاي ألا له الخلق والأمر. إلهي أبورك إساقا إسكاله إساقانا إسكاله أمرك دادك إيو عيد إيو عرك إيو بضبا إساقا أبورتي أمركنا إساقا له محامرك لين أمري إلهي وحيري ولكم في الغساس حياة يا أولي الألباب. إن أتقاتلك قساستان أو واجبك سمرسان noloshiina ku jirta haddaa caqli leedihiin. wallaahay nabad heli mayno. wallaahay janno rajo badan lagama qabo. ilaah baan ku dhaartee guulaysan mayno. ilaah baan ku dhaartee dowlad noqon mayno haddaynaan fulin ilaahay aayaddiisaasoo qisaasta ah. maxaa yeelay sidee nabad loo helayaa? waad degaysanayseen hadda. waxaan malanaya meeshuu ka hadlayay nin xaakim ah oo garow ka mid ah kolley Puntland buu ahaa ayuu inuu garow ahaa sheekhuna watuu ka hadlay Maxamed oo Yuusuf. wuxuu yiri ninkii la xukumay oo qisaasta loo xukumay ayaa noogu yimi maxkamadii. bal ka waran maxaa u diiday ragga xukuman inuu laayo? arrintaasi arrin dhulka Soomaaliyeed inteeda badan camiimtay way. hadda laakiin waxa ugu dambeysay magaalada la yiraahdo Gaalkacyo saad ka war haysaan waxaa ka dhacayay dilal aad u fool xun oo la beegsanayay indhaha bulshada. Gaalkacyo dhawaan shir baa ku dhammaaday ay isugu yimaadeen dadkii macnaha lahaa ee gobolkaas. Gaalkacyo ma magaalo culimo ku yar tahayba? ma magaalo aqoon-yahan ku yar yahayba? ma magaalo waxgarad ku yar yahayba? dadka degani waa dadka Soomaalida ugu quality-ga wanaagsan. number 1 hadaan ahayna waa number 2. waa dadkii Soomaalida tusaalaha oo ahaayo baray inay dad shacabi intay isu tagaan dekad dhisan karaan. waana dadka la doonayo inay Soomaalida tusaale u noqdaan. laakiin maxaa dhacay? waxa dhacay dadka marka wax ma yaqaankiisana talada loogu dhiibo qofkooda aqoon talana la fogeeyo midhahaas la gurtaa. iyadoo halaagani uu qabaayilka yahay oo fidnadani ay ka imanayso qabiilka iyo reeraha misana maamulku hadduusan quality lahayn oo aanu awood lahayn oo dadka wanaagsan uu iska fogeeyay oo dadkii liitay uu soo urursaday xaaladda way iga sii daraysaa. example ninka gudoomiyaha gobolka ka ah ayada hadda reer mudug lagu caayo isaga dadkiisa ku caayay. xagee bay dunida ka dhacdaa nin mas'uul gobolihii dadkiisa inuu caayo? dadka mas'uuliyiinta gobolada iyo degmooyinka ka ah waxay asturtaan ceebahooda, waxay qariyaan dadkooda dhibaatadooda, waxa wanaagsan wax xulay sameeyaan bay wax wanaagsan ku sheegaan. xagaad ku aragtay mas'uul ugu soo hormaraya inuu dadkii isagu mas'uulka ka ahaa u caayo?
marka gaalkacaayo iyo qayrkeedba waxaan rabnaan ku idhaahdo iyo Soomaaliba ilaahay baan ku dhaartay ma liibaanayno inta aynu nin qaatila quryaa ilaahay sooma oran waman qatala mu'minan muta'ammidan fajazaahu jahannam khalidan fiha wa la'ana wa a'adda lahum ilaahay wuxuu jahannam u galayaa oo ku waaraya